Cabdiqani Siciid Carab waxaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uu la wareegay 2014 kadib doorasho xalaalnimadeeda mugdi hareeyay oo ka dhacday Muqdisho. Muddada xilhayntiisa oo ku ekayd 4 sano, waxaa jiray cabashooyin joogto ah iyo eedeymo ka imaanaya ciyaartoyda dheesha horyaalka iyo kooxaha kale ee ka soo dallacaya heerka hoose kana cabanayay musuq iyo in uu ka qaatay lacag aan sharci ahayn. Cabdiqani Siciid Carab waxa uu dhamaystay 4 sano ee ugu horeysay isaga oo aan wax guul ah u soo hooyn horyaalka Soomaaliya. Kaliyana waxa uu ka fakarayay sidii uu mar kale ugu soo bixi lahaa doorashada xigta. 2018 ayaa dib loo doortay waliba doorasho aan dhaamintii hore kana musuq badnayd, isaga oo doorashadiisa ku bixiyay lacag loo qorsheeyay in lagu horumariyo ciyaaraha Soomaalida, taasi oo ahayd mid FIFA ay ugu tala gashay in sare loogu qaado horyaalka dalkeena. Cabdiqani Siciid Carab kaliya ayaa u sharaxan gudoomiyaha. Cadeymaha loo hayo musuqmaasuqa Cabdiqani Siciid Carab waxaa lagu cadeyn karaa in uu gacan bidixeeyay lacag si gaar ah loogu talagalay gabdhaha ciyaara kubadda cagta. Walibana waxaa lagu dacweeyay FIFA iyada oo haatan ay socoto baarista kiiskaas musuqmaasuqa ah oo uu ku muteysan karo waayida xilka xoogga uu ku qabsaday. Haatan waxaa soo ifbaxaysa inuu u cagajuglaynayo warbaahinta gaar ahaanna tan iska xil saartay tibinta ciyaaraha kala duwan ee dalka, isagoo uu weydiisanaya lacag baad ah oo gaaraysa $20,000 isaga oo ku cagajuglaynaya in aysan tibin karin ciyaaraha haddii aysan bixin lacagta intaas la eg. Su'aashu waxa ay tahay yaa leh mas'uuliyadda la xisaabtanka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya? Maxayse kala socotaa wasaaradda ciyaaraha musuqmaasuqa iyo horumar la'aanta horyaalka Soomaaliya?